xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal ee Kevin Campbell ayaa isbitaalka loola cararay kadib markii ay soo wajahday xaalad mirbeel ah. Kevin Campbell oo muddo 10 sano ah u soo ciyaaray Arsenal intii u dhaxaysay sanadihii 1985 ilaa 1995 ayaa Gunners ka caawiyay inay ku guuleysato horyaalka Premier League, FA Cup-ka, League Cup-ka iyo European Cup Winners' Cup. 54 sano jirkan ayaa toddobaadkii hore la dhigay isbitaalka, balse waa laga soo saaray. Ha yeeshee mar kale ayuu laacibkii hore miir daboolmay, waxaana sii cuslaatay xaaladiisa caafimaad, taasoo keentay in isbitaalka dib loogu celiyo. Wararku waxay intaa ku darayaan in weeraryahankii hore ee Everton xaaladiisa caafimaad aysan haatan wanaagsanayn, isla markaana ay labada kaliyood shaqo gabeen. Kevin Campbell ayaa Arsenal u saftay 209 kulan, isagoo u dhaliyay 55 gool, isla markaana u sameeyay 20 caawin. Marka laga soo tago Arsenal iyo Everton, waxaa kale oo uu Kevin Campbell u soo ciyaaray kooxaha Nottingham Forest, West Bromwich Albion, Cardiff City iyo kooxda reer Turkey ee Trabzonspor, halka uu waqtiyo amaah ahaa ku qaatay kooxaha Leyton Orient iyo Leicester City. Kooxihii uu soo ciyaaray Kevin Campbell iyo xidigihii uu ka soo garab dheelay ayaa intooda badan caafimaad u rajeeyay Campbell.